الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. dhalinyarada siyaasiyiinta iyo dhammaanba asxaabta fikirka kan la timi aad baan u mahadcelinayaa. waana ku faraxsanahay runtii inaan kulankan qayb ka ahaado. waxyaabaha aan magaaladan iyo dalkanba ku jeclay waxaa ka mid ah fikradaha cusub iyo hirgelintooda. waxaad arkaysaa fikrad magaalo kale laga keenay laakiin la doonayo in marka hore Hargeysa lagu hor hirgeliyo. waxyaabaha magaaladan aadka ugu jeclay waxaa ka mid ah kolka dhalinyarta iyo qaabka ay u fikiraan oo aanan meel ka helin. haddii meel ay ku cajabiso biyaheedu iyo haddii meel ku cajabiso buuraheeduba, halkan waxaa aad ku cajabinaysa dhalinyaradeeda iyo fikirka ay hadba la imanayso ee ay isku dayayso magaranaysaa inay hirgeliso. kulle marka mikrofoonka qabsano meel baan isku daynaa inaan ka galno mawduuca ee anigu Turki ma tegin, laakiin marka hore waxay u badanaysaa waan islahaa dhalinyaro iyo maansooyin markaa waxaan sitay waxbarashada iyo waxa ka hadlaysa, laakiin siyaasiyiin iyo waxay u badatayba niman kale odayaala. kolkaa laba shay baa isbedelay. kow, maansadeedii way isbedeshaan meesha ka akhri lahaa. waxaa kaloo isbedeshay qodob aan ka hadli lahaa. anigu caafimaadkaan ku jiraa, bahda caafimaadka qolyahan dhakhaatiirtaan ka mid ahay. kolkaa fikrad baa runtii igu soo yaro dhacdayaan maalmahanba ka fikrayay. dhakhtarka weyne Hargeysa oo aan badanka joogno ayaa waxaa ku imanaya qof referral hospital wuxuu u yahay ama wuxuu dhakhtar la xigto u yahay ilaa Boosaaso. dhakhtarka yareed arkaysaan ee saa isaga liitaa, haddana waxa lagu daweeyaa dadka ilaa Boosaaso ka yimaada ayuu yahay referral hospital oo loo soo magaranaysaa ee gudbiya. dadka ka dhoofa ee ama caafimaad uga dhoofo ama Turkiga taga ama Djibouti taga ama Ethiopia tagana tire iyo cadad male. marka qolyahaygan dhakhaatiirtii dawaan u qornaa dad Panadol qoshaca Panadol haddaad qorto waxaa laga yaabaa Panadol-shaas in la soo siiyo isla Panadol-sha in loo qoraa laga yaabaa, laakiin Panadol-shaas markay adiis taallo way ka tayo sarreysaa. dawad qofku wuxuu eedan markaba saarayaa dhakhtarkii, wuxuuna kii dhakhtar ahaa dawada miyuu soo qorayo waan ku bogsan wahay. dawadu waa isla dawadii, aqoontu waa isla aqoontii, prescription-ku waa isla prescription-kii, laakiin waxa isbedelaya dawadii aad qofka siinaysay iyo qaabkii aad u shaybaadhaysay. marka waxaynu samayn karnaa maadaama fikradana aa keenteen dhalinyarada fikradahan keenayaan usoo bandhigaya dabcan waxaynu ka dhigi karnaa isbitaalka weyne Hargeysa dekeda labaad ee Berbero kale ay noqon kartaa haddiise la sameeyo sidan. hoteeladu waxay leeyihiin waxaan la yidhahdaa 5 star iyo waxbay leeyihiin. marka hoteelka 5 starka tusaale ahaan shuruudu leeyihiin, waa ina sariiru caynkaa yihiin, waa intaasoo qola leeyihiin. waxaa la samayn karaa shirkad tusaale ahaan maadaama oo Turkiga oo kale uu caan ku yahay caafimaadka, waxaa lala soo shuraakoobi karaa shirkad caan ku ah dhakhaatiirta sida DP World imka ay caan ugu tahay dekedaha, ayaa waxaa lala soo shuraakoobi karaa shirkad caan ku ah dhakhaatiirta. dee dhakhtarka weyne Hargeysa maamulkeeda iyada la wareegaysa, dhakhaatiirta la keenaya ka ugu sareeya takhasus buu noqonaya, wixii ka hooseeyana neerasteeda iyo waxaasaynu isticmaalnaa. marka waxaa ka fikirtaan kasakow ilaan fikrad kasta waxay leedahay iliilona waxay kugu ridaan markasta dariiqa weyne. waxaa ka fikirtaan sidaa uga fikiraysaan inaad dadka adeegyo dibadda ah u keentaan, sidoo kale aynu ka fikirno wasaaradaheenna iyo magaranaysaa institutionadeenna waxbarasho iyo caafimaad inay noqdaan qaar iyaga adeeg loo soo doonan karo. taasi waa iga mid. talabaad, maansaan sameeyey waa inaan ka soo baxay dugsiga sare ilaa isbaan ka soo baxay dabadeed markii wax la noo dhigayba mar Cumar bin Khataab baa lagu dhigayaa tarbiyadii, mar physics-ka lagu dhigayaa, nin kale xisaabta wax kale lagu dhigayaa. marka waxaad arkaysaa dhammaan wax kasta oo aad iskuulka ku dhigato ama aad jaamacadda ku dhigato markaad suuqa u soo baxdo wax ka duwan baad la kulmaysaa. siyaasiyiin iyo hogaamiyeyaal waxaa lagu dhigayaa cajiiba, dibadda markaad usoo baxdo wax kale yaalla. xisaabyahanna lagu soo dhigaya, qaar kale halkan jooga. dal baa lagu dhigayaa iyo revolution iyo qaab ay dhaceen, halkan waxay yaalla haddana arkaysaa. marka waxaa isu keeni lahaan waayey wixii la noo dhigi jiray iyo xaqiiqadii taallay dalkayga ama magaalada xaqiiqadii taallay baa isu keeni lahaan weyday. marka naftaydaan kula hadlayay maanse la yidhaahdo aamusnidu waa hadal oo ka warramaysa qofka bini'aadanka ah waxbuu doonayaa, laakiin wax kasta uu doonaya aniga deemka ilaahay nin British wuu iga dhigi karay, laakiin sababta aanu ilaahay nin British iga dhigin waxa weeyaan halkan sababta la igu dhalay waxa weeyaan halkana la igu talagalay inaan wax ka bedelo, halkana cadkaygu iyo cuudkayguba ka qoran, marka halkana loogu talagalay inaan wax ka bedelo. ilaahay markaa inaga dhammaanteen Turkish wuu inaga dhigi karay, laakiin waxa la inooga dhigi waayo waxa weeyaan halkana la doonayay inaynu wax ka bedelo. maanse caynkaasa
maalmuhu isniin iyo axad iyo salaasiye arbiciye mid weeyaan hadba wiigga u gubiyo bila aadmi sheegtiyo cimrigiyo awaashuna afarqaadka mirarkiiyo saacadaha idlaadiyo sikinkaa u daayay abtirsiinta sheegtaan ha yeeshee ifraaxee nin intaa isdhowraa aakhiro badbaado sida aad adduunyada uga eedbaxdaabaa rabbi kuu ilaashaa wakhtiguna ayaantaad farxad ubax barwaaqada ku ildoogsanaysu orod iyo xawaaraha kabti kugu agdhaafaa marka aadse murugiye asay iyo aramida guraysuu kulba aad yarluuda xalay dad xanuunsatay 30 daqiiqadood xalay xanuunsanaysay xalay oo dhan baan taahayay masaaquulada la jeediyay ifku waa sir iyo caad intan aad arkaysana inta aad ilduuftee ishu daadi weydaa afarlaab ka badanoo uurkuna dareenkuu afka sheeg yidhaahdaa inta uu ka oodmee ereyada u waayaa kullay aad u badanoo aamusniduba waa hadal la adeegsi bidagoor hadalkuu istaadhmayn anna saaka beerkaan muddo seexa idhibaa igu laba kacleeyo tixda arar la sheegiyo markuu aamu diidaan tixda arar la sheegiyo maansada abuuraa marka uurku ooyaa gabayguna ilmeeyaa sabab buu ilaahay muslim qira arkaantiyo kaaga dhigay islaamo sabab buu ilaahay soomaali awrliyo kaaga dhashay abkaasoo sabab buu ilaahay ruux iskii u nool iyo insaan kastiririya karaamada qof aadmiya kaaga duway aboor iyo abeesiya dugaagee dadka oo iimaankiyo ashahaada qiraya marka ay kun eeniyo kuman ee xadhaartaan ibni aadan sheekiya anigiyo anaan odhan ku ilaaba garashada xaqu waa alliya nebi ka adkow odhaahdeed marka gaal itaashado inta nool jirkaagee agabkuu sameeyaa adigoo kobtaadiyo arabsiyo kolkaa degay waxaa jira almaaniya kugu eegma geeyaan indhow garad la yaab iyo argagaxa la sara kaco sirtu waa aqoontiyo alif iyo waxmaalaha asalkay lahayd iyo dunjigay ku ahabtee marka qolo asqowdaa u shaqabata diintee qolo kale ayaan iyo u awooda sheegtaan qolo kale iftiin iyo u astaama sheegtaan inkiraadda qolo kale ku awaajifaafshaan ninba gaarsi araggii aayadaha u kala guro duco waa allow sahal istikfaartu waa diin iglan waa maraykane kolka ay israa'iil labadaba afkood tahay carabtiyo imaaraad inta laysu daba maro midba agab ka soo guro falastiin la iibsado afrikaanna sheekiya ictiraafka lagu sabo waa been nin aakee kugu yidhi itaashee jihaad waa afxilashada akhriskiyo qoraalkiiyo qalinkiyo adeegsiga ururada qabiilkee loogu eexda beeluhu kolka gelin axsaab iyo qaran loo abaabulo duqaydiyo islaamaha ubadkiyo caruuraha inta loo tollay dhaho amba baxa daraaddii amin loo dadaal falo kolka loo ansixiyee xilka loo agaasimo iska daa cid kale oo abtigiis dharaartu in yar oo cadaalada idilkeed ka laayahay hays odhan isbiimee duul wada asqoobaa kaa awtay dhagahee ashtakada ha sii badin aadna ha u calaacalin arligiyo dhulkaagana oday kaa tegaayay ha u nicin afminshaar abidkaa ha niyad jabin mabda'aaga ku adkow axda iyo xanuunkiyo alwadkiyo baroortaa dadka qaar u iidoo markaad dhawaaqdeed iga daatiraahday usha kula dhacaanoo looma ooyo ruuxaan ilmadaada dhabankiyo u qalmaynin murugada aad